السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاهيم ينبغي أن تصحح. waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalayaal waxyaabo fahan ah oo u baahan in la saxo jidriyana loo saxo. arrimahaasi waa siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa u baahan fahan badan in la saxo waa lagama maarmaan. bini aadamkana haddaan la sixin wixii uu ku soo socon jiray iyo wixii uu arki jiray uu moodayaa inuu yahay wax fiican. waxaan rabaa inaan idhaahdo maalmahan wada weydo arrin baa taagneyd wakiilka umamul mutaxida ama qaramada midoobay ee Soomaaliya la bedelaa la yiri oo wadankaas kaga baxo dadku siba u kala qaadeen. waxaa ka hadlayay siyaasiyiin badan balaaya soo dhacaysa dawladdan way degdegtay qar iska tuur weeye cunaqabatayn baa lagu soo reegay waxaa laga qaadan doonaa waxa la wixii umamul mutaxida baa baxay. qaramada midoobay ninkii u joogay bax baa la yiri waa baxay. qaramada midoobayna way ogolaatay inuu baxo waana la soo bedelayaa kiiskaasina halkaas ugu dhamaaday. waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waxa u baahan fahamka waxa weeye 20 sano iyo 30 sano ee la soo dhaafay wixii soo socday waa in la bedelo. qofku haduusan isagu isgelinin wax la cizi iyo sharaf na Allah si kale ku bedeli maayo. inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. waxaan ogaan jiray wadamada dariska Ethiopia Kenya oo looga yeero madaxweyne Soomaaliya nin walba siyaasi oo halka inta lagu soo kulmo loo soo dhiibo wixii la rabo. madaxweynahani markuu yimid Farmaajo wuxuu yiri aan wada shaqeyno dad equal baan nahay oo aan wada hadalno way u hirgashay. carabta Sacuudiga Imaaraad iyo fulaan ba saarta ka yeeli jiray iyagana waxa la yiri aan wada hadalno. umamul mutaxida qaramada midoobay baa hadda qaabta loola dhaqmaya. bini aadamku haddaadan adigu iscizaynin oodan sharaf isu yeelin oodan madaxaaga kor u qaadin cidna ku qaadi mayso. dabkii waxa lagu gubto ayaa dambaskiisa laga leexdaa. waa inaad dadka leeyahay aan wada hadalo waxyaabaha cajabta badan oo cajab geliya la yaab kale iyo inhizaamka dakhiliga gudaha iyo niyad xumada dadka qaar ku jira siyaasiyiina. waxaan fiirinay nin madaxweyne soo maray Soomaaliyeed oo intuu ka hadlay arrinta Soomaaliya baa wuxuu leeyahay Ethiopia iyo Eritrea uu madaxweynuhu la soo heshiiyay. anaga Ethiopia waxba lama qaybsan karo equal manihin islama ekin dad wada hadli kareeba manihin waagan soo gaadhno baan wada hadli doonaa. billahi calaykum yani waa wax u baahan waa fahamka aan ka hadlayaa raba in la bedelo weeyaan. haddaba waxaan rabaa walaalayaal inaan dhaho dadka Soomaaliyeed dawladda jirta hadaynan khilaaf wax mukhalafaad sharciga islaamka ku kicin in la ayido oo la difaacay waa laga maarmaan. maalintii Xasan Sheekh Maxamuud la doortay ayaa waxaan ku yiri dadka masaajidkan habeenkii ka hadlay waxaan yiri ma la yaqaan ninkan waxa la yiri wax yaqaan anu ma naqaan. waxaan yiri haddaba hadda u duceeya waxaan ogahay madaxweyne walba wada habaartaan u duceeya maanta idin la gudboonaan tahay. dhowr bilood kadib baa la yiri maalin inuu ku jiro meelaha dadku ku kulmaan baraha oo ummad ilaa dhowr kun ay ku jirta baa Sheekh Axmed u duceey madaxweynihii Masar Mursi. waxaan intaan Mursi u duceynin horta madaxweynaheena u duceey maad dhahdaan. marka waxaan ka wadaa mar walba dawladda jirta anaga qof hebel iyo hebel ma aha muhiimadu ee waxa weeyaan sharafta Soomaaliya karaamada Soomaaliya siyaadada Soomaaliya in la difaaco waa laga maarmaan weeyaan. haddaba waxaan rabaa walaalayaal inaan dhaho dadka fahamkii ahaa in hoos la isu dhigo oo hoos la fiiriyo oo farta la isugu yeero oo waxba la iska goyn la yiraahdo war arsaaqadeena Ilaahay baa haya aynu inagana iska dhigna dad cizalo oo sharaf leh aynu iska dhigno arrintan ugu muhiimsan taas weey. dawladdaani qaabka tacaamulka ula dhaqday wadamada dariska kuwii Carabeed ee qaramada midoobay aqaalimta iyo gobolada Soomaaliya waa hal wadan. Soomaaliya hal madaxweyneeda ayay leedahay. inta ka soo hadhay gobollo way. waxaan aad iyo aad uga xumaada ama ka naxa ama wax laga yaqsado inuu qof intuu soo istaago dawladdu waxay faragelinaysaa gobol hebel bay faragelin ku haysaa. war gobolkan xaguu ka yimid Soomaaliya ma hamiya dadka jooga ee baarlamaanka ee soo kuwan meesha isaga doortay soo kuwa inta ka yimid ma wadan labaad miya meesha ku nool. fahamka haddaan la bedawladu gobolada waa inay tagto faragelin ma iyada iska leh waa inay tagto waa inay madaxweynayaasheeda dhisto iyadu waa inay keento madaxweyne la socda waa inay ka saarto kii kale oo ka soo horjeeda. sababtoo waxa weeye see wax inoo dhismay haddaan dad wada socdaa jirin ma dad sida u kala jeeda baa soconaya mise dad saa wada socda baa soconaya. billahi calaykum aqliga maxaan isaga qaadaynaa. طيب marka waxaan rabaa inaan iraahdo xaqiiqatan dawladdu aragtideeda way ku saxan tahay waxyaabaha ay sameynaysa tirada badan
maaha tan iyo laba waxa tirada badan ay sameyn way ku saxsan tahay annagana waxa laazim inagu ah inaynu arinta iyada gacan la wada siiyo ugu dambeyntii taxiyata shurafaa wal abtaal sharafta taxiyada ama salaanta dadka sharafta leh ba waxaan u dirayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre wada mahadsantihiin horeyna u socda wajazaakumullahu khayr inta niyada xun ee gadaal fiirinaysa ee caqabadaha iyo jalaafooyinka idin dhigaysana waad ka guuleysanaysaan inta badan ee Soomaaliyeed baa idin la socota wada mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh